السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذنكي ملبا جوجتان كسو دوادا تيم داعد إمر لباد إمر سدحات سو نقضي إن مانتي waxa ila jooga aqoonyahan Cabdiraxmaan Cabdishire oo runtii ah aqoonyahan Soomaaliyeed xigmad leh runtii aan rabna maanta inaan ka faa'iideysano qofka weyn waa laga faa'iideystaa xigmadaha oo ku dheeryahay Cabdiraxmaan soo dhawow team daacad iyo maanta barnaamijka aan noo hayso horta ku soo dhawow intaan barnaamijka guda galin team daacad ku soo dhawow ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم محمد ولو هي ما هذا كواد إلهي بس كله الحمد لله ومر كستين لقوم هذيو يعني مضن ما شاء الله والله واد وقوم هذي يا هالكن هذيك سؤال بس دي تيم تاعد ما شاء الله soo dhawow kulena kun iyo ku jeer maantay waxaad noo sheegtay inaad noo hayso waxa la yiraahdo kororso aqoontaada ما شاء الله oo aqoontaada maanta alle inaan ka kororsano ما شاء الله hadaan hay Soomaali nabi Maxamed idin meel ma joogno okay maanta maadaama aan aqoonta noo korinayso maxaad nagu soo korin leeyahay قلت محمد وين وارنتايو أقانتو مال كستوي قف كي كوشرت إلهي بقى قف كستانا برضو هيا صح أنا أقانتي يردن موض هيا لكن أنت كهيا يا كل واحد سكودي هنا نديك هيا ولا لهم بيدي اليوم أنا فايديو دنبال كل ما تعنتري إنه لما وحين قارسين بالشدة الصوماليات إن شاء الله وقارد أنا بإذن الله كريم حينات هاي أمباني جاي لهم مقاطعين برنامج فايدة لي هاي واي برنامج كان حال وقوم قعدرني هيل هويو برنامج وقوم قعدرني هيل هويو هيلي ما شاء الله هويو ميلو بيجوكتو إلهي هبر واقعيو إلهي هديستو وحيلات هاي هدي هويو اللي هلو هويو له هيليو هيل كاي سجا قف مقاني إنا يبشرين بعد ما شاء الله بين طبعا نمبر 1 هرتالكم حق السلام يا هويو كسوماليو دن بيل كستي شوغان ما شاء الله دنبال كنا gaarahaan hooyooyinka Soomaaliyeed baynu u qabanay ما شاء الله hooyooyinka waxa ugu horeysay hooyadii macaan koos Ismaan Cabdi ما شاء الله هوي macaantu waa salaamta meel baad joogto hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan يا هوي سيمبري بعد السلام barnaamijkan hiil hooyo wuxuu iga soo maaxday indhaweytoole markii aan arkay dad badan oo aqoon yahanaa amba culimo amba xigmaawiyiin amba waay araga amba inta magaranaysa wanaaga jecel oo dhan صح inay dirayaan barnaamijkan oo qofba fariinta halku taagan yahay u ka soo diro ما شاء الله على حال fariintaasi horta kulkii ugu dambeysay maxamed oo ku soo sheegay dhaafay صح hadii horta cid aan kaga dadka Soomaaliyeed horta waan wada jecelahay صح gibiga dhamaantood صح haddaan cid ku dayan lahaa ها مثلا علماء haddaan noqon lahaa sheekh ها waxaan ku dayan lahaa maxamed sheekh Umar Dirir ما شاء الله hadii aan ku dayan lahaa aqoonyahan Cabdi Ismaaciil Samatar عبد إسماعيل Samatar سمتر haddaan wariye noqon lahaa يس Cabdi Salaam Ibrahim Yareeri dadka xigmadda lahayd soo urursi haddaan noqon lahaa maxaa la yiraahdaa madaxweyne kuwa Soomaalida imika jooga ها Mustafa Maxamed Umar مصطفى محمد عمر kilka shanaad ما شاء الله هي waa madaxweynaha xagga Soomaalinimada ugu ilaa turxaanta ah dambilaawaha ah yani dhankan aynu ka hadlayno u hadlaya ها abwaanada horta abwaan aan halka ku xusay uu jira hadraawi هي hadii hooyo hilkeeda idii oran lahayd amba ay u hili lahayd qof Soomaaliyeed oo afka kala qaado hadraawi gaaraya halka hooyo amaanteedu gaarsiiyay runtii aanay mudnaan tahayna ma jiro صح balse abwaaninta imika shaqeeyana la يوسف شاعر oo maalin dhexdaas daawanayay baa wuxuu barshadu socday erebixinta af Soomaaliga laga hadlayay kolka wuxuu sheegay in hooyo erigi af Soomaaliga ugu qaalisanaa inuu ahaa hooyo taana way wadaagsonahay صح wala doogtaas waa ka warqabna inay hiil u baahan tahay ayuu noo sheegay inoo tibaaxay صح fariintaana uu soo ku diray صح kula dayan lahayn horta sida runta ah ما شاء الله haddaba hooyo hadii loo hiiliyo dhammaan ummadda bulshada oo dhan qaybadeeda kala duwan waynu hiilinay bay ka dhigantay ما شاء الله haddaba dhambaalkan intiirana muxuu yahay waa hiil hooyo وهيل hooyo هوي yani wax ka qaalisan ma jiro وصح وبنت ما أدونك وشيء dhulkeena waxa la yiraahdaa dhulka ma hadeen Soomaali nahay dhulkeena waxa la yiraahdaa dhulkeena hooyo بيرما afkeena waxa la yiraahdaa afkeena hooyo labada hadii la waayo Soomaali ma jirtay ka dhigantay hooyo hadii la waayo Soomaali ma jirtay ka dhigantay ereyga hooyo صح waayo
dhulkii lagu noolaayo diblaada meel ku nool iyo dhulka ugu qiimo badan wadluk hooyo wax lagu faano masha Allah dhulku waa dhulka hooyo haye dhulka aabba miyaynu maqalay weli maya ya maya afka aabbana maya midna ma jiro midna ma jiro haddaba maadaama hooyo dhulkii iyo afkiiba ay xambaarsan tahay in ereyga hooyo wax qaali agteena ka yahay ayaynu dadka u sheegaynaa masha Allah hooyo galgali waa lagala baxay tusaale ahaan waagii hore matalan waxaa joogi jiray dalkan east africa dad soomaaliya oo sijuul lo odhan jiray صح ilaa haatan way jiraan dadkaasi imika way yaryihiin hadday jiraan af soomaaliga way barteene صح kelmad af soomaaliya iyagoon aqoonin ah ayay haddana odhan jireen hooyayaangu anasema ay dhihi jireen ha صح betama markaasi dadka kale madowgina odhan jireen amba ciddii la hadlaya hooyo ninini nitu hooyo markaasuu sheegi jiro hooyo waa maama waa sidan haddaba intii dambe waxa dhacday horta nairobi ha kusii darnaatee hooyo in galgalaha lagala baxay waa laga cariirsaday bosku hooyo waa laga qaadayba haye maxaa ka qaaday maamo ereyga la yidhaha maamo ha ereyga la yidhaha maamo wuxuu qaatil meel walbo ay soomaali joogto nacam hadday daba joogto hadday afrika joogto Ha. hadday dalka joogto Ha. qof walba waxaa arkaysaa maymaada uu soo qora ama wuxuu soo qora mamayangu waa Ama labada mamayangu. labada keliya la ama isticmaalo. umu ama may umu alusule af carabi la ha isticmaalo ha ha laakiin si hadda afka ka dhadhaminayo nacam magaca hooyo uu dhumi innaga maamo waxbay nooguma fadhido dhulka maamona maynaan maqal sax afka maamona maynaan maqal sax haddii la yidhahdo dhulkii loogu yeedho dhulka maamo ah iyo afka maamo dee waa laylan la yeelanayaayo cidna kama xidno cid kama xigin laakiin dhulkeena hooyo markaan dhulkeena hooyo Baan markaynu ugu leenahay leenahay. ayaynu inagu leenahay haddaba update ha lagu sameeyo magaca hooyo intay hooyooyinka soomaaliyed ugu horeeyaan iyo ka yeelin carruur ubadkooda inay ugu yeedhaan maama sax ha ku tarbiyeeyaan xataa af soomaaliga haddaanay aqoonin ah inuu yidhaahdo hooyo my hooyo waynu yidhahdaa kan halkan jooga tusaale ahaan afka sooxiliga ku hadloo kale waynu yidha hooyayaangu hadduu aanu garanin macraf soomaaliga sax waa inuu erga hooyo qofku hadduu hooyo usan lagama garan dhuminin waynaan lumin okay haatan waxaa afkaa ka dhadhaminayaa in aad u dagaaltamayso ereyga hooyo inuusan marnaba dhumin nacam haa waan karti haddaba taasi horta xanuun badan bay aniga igu reebtay anigu maan ahayn nin heesa amba ma garanaysaa gabya sax kolkaa tix yar baan halkan hooyo uga alfay tix iyo lababa de maxay haytay horaa looga mariyo qofka doonaya hooyo ammaanteed heesaha hatiraawi sameeyey sax aada ha u dhegaystaan maasha allah qofka doonaya hooyo ammaanteed qur-aanka iyo axaadiista ikabada xaqa hooyo leedahay Halkaas laga helaa. halkaa ha ka dhegaystaan waan karti laakiin anigu in yaroo af soomaaliya ayaan halkan isku soo toostoosiyo de inaan khalkhaldayna waa laga yaabaa sida waxaan ugu magac daray hiil hooyo hiil hooyo ha waa tix kolkaa sugaantu baday leedahay sax badaha macal sugaanta haddii aan dhowr badood aan galo waa iska caadi sax waxaan ku bilaabay Ha. hadalkaygan caawiya had kaleba ha joogtee hawraarta maansada heesaha iyo gabayada weli hoos umaandeyin hibe eeba bixiyoon hal abuuro mooye cidi hadal imay dhihin idil hadal cidi hadal imay dhihi imay dhihinoo dee yani imay soo qasbinoo imay odhan sax hadaloo hooyo kaada sax anunbaa dee hindisay macnaha sax hebel ugu jawaabiyo hayb amaanisteediyo hebel ugu jawaabiyo hayb amaanisteed iyo heer sare ka gaadho hanti siiso uma dhihin sax ya sax oo dee adduunyaad ku heshid amba qolyadiina ku ammaano kaama ahan igama aha maasha allah ya waa iga hiil hooyo oo weliya maaragtaa ilaa hadda way odagatamaysaa hooyo waxaa la jirta joogto ha lagugu ammaano hebelow ha lagu dhaho heedha taana uma dhihin hadal iyo dhammaantii himbiriirsi eegmo himbiriirsi yani waa aragti waxaad meel fog ka arkayso sax hadal iyo dhammaantii himbiriirsi eegmuu hilaac igu muuqdaa hilankoo qalocdaan hadba toosi leeyahay hadalkii hadraawe heesaha iyo heesaha uu ka tiriyiyo hal abuur intuu yidhi ayuun baan higsanayaa hiil hooyo weeyaan maasha allah hanfaday soomaalaay hiddaheeda lumiyaay hayinkeeda qalatoy hantideeda gadatoy hoygeed dabgeliyaay hadhaceeda gooyaay
hadhow qoomameeyaay hooyadeed ilaawaay hugun baan naftaydii habeenadan ijiidho hurdadii ma gamayo sidii beel hayaanto habqamaysa uun baan keliday hadraayaa marra aan hadlaayaa hadal iyo dhammaantii hadal iyo dhammaantii hooyadeen hiil bay rabtaa haddana waan bedelay maxaa la idhahdaa badii hore hooyadeen hiil bay rabtaa hooyadeen hiil bay rabtaa haddii hooyaba la waayo halkee hilinkeenu yahay maxaa hantideennu tahay dhulka hooyo magicii afka hooyo waa maxay ereygiisa koobaad hooyu ahaayo waa ereygiisa koobaad hooyu ahaayo maamaa hanjabayso hooygii ku socoto hantidii dhexlaysee soomaalaay u hiisha hooyadeen maasha allah kolkaa adigu dee intaa yaran magaranaysaa isku toostoosiyey inkastoona aada u qurux badnayn ayaan haddana isiri bal hadda wax ka dhaho hooyo abaal uga dhig macnaha inkastoona abaalkeeda la gudiba karay haddaba dhambaalka aan dirayna waxaa ka mid ah inay dadku yidhaahdaan kelmad aada imika usoo badatay beryahan dambe oo la yidhaahdo dadka afka soomaaliga ku hadla waa kelmad qalada yani afka soomaaliga haddii aad tidhaahdo dadka ku hadla dad badan oo bartay baa jiro oo dee ku hadla laxajeclo kuma jirto waa dad uun adigu afka soomaaliga iskaga hadlaya iska bartay balse aan garanaynin macnihiisa inaad tidhaahdo laba mid inaad tidhahdo dadka soomaaliyeed iyo inaad tidhaahdo afkeena hooyo labadaa waxba kama dhexeeyaan dhulka soomaalidu degto ayaa beryaha dadka ku badan waa inay taana iska daayaan yani dhulka soomaalidu degto maaha waa dhulkeena hooyo haddii kale waa dhulka soomaaliyeed labadaa mid iminka tusaale ahaan nairobi xaafadda islii ayay soomaalidu degan tahay bulshada kale ee waddanka ku dhaqani ma yidhaahdaan xaafadda soomaalidu degto nairobi ma yidhahdaan waxay yidhahdaan isliika waa soomaali isliida soomaalida isliida soomaalida haddii laydhaa soomaalida degtaa way degan yihiinunoo way ka guurayaan beritoole laakiin hanti baa naga degan naga taallaa soomaalidii de way degtay oo kolma dhashay oo qaar baa dee dhaxal awow ku leh waxa daar iyo hanti iyo baacmushtar iyo ganacsi kala socda soomaali baa leh sidaa darteed dadkii waddankan lahaa ma yidhaahdaan xaafadda soomaalidu degto hadday yidhahdaan degto way degan yihiinunoo way nooga guurayaan waya macnaheedu laakiin waxay leeyihinba isliika waa soomaali xaafadda soomaalida kol hadday iyagu ina ogolyiin ayna siiyeen waxaynu inagu qariib ugu noqonayna odhan xaafadda soomaalidu degto kolka waxay ka dhigan tahay soomaalidu dhulkay degan tahay waa dhul iyadu leeda isliina allaha ka yeelay ya dhulka soomaaliyeedna waxaan u aqaanaa dhulkeena hooyo marka dee dhul ahaan iyo dal ahaan la tilmaamayo xaggan kenya malaa gaarisa inagu soo xigtay marka xogaa yar laga soo socdaan malaynaya halkaana dee waa la yaqaanaa hadday etoobiya noqoto hadday jabuuti noqoto hadday meel kasta noqoto hadday somaliland noqoto yani waa inooyo sidaa haddii haddaba cid raggaa sheegeen ku dayan lahaa waxaa ku jirta gabayga yani umaan odhan hayb amaanideed amba dee cid aan ku jeclaysanayo waxay la tahay dadka fanaan haddaan waxaan ka tegay fanaan haddaan ku dayan lahaa xasan aadan samatar baan ku dayan lahaa haddaan siyaasi ku dayan lahaa magaranaysaa soomaaliyeed soomaali baynu ka hadlanaa nin la idhaahdo faarax macalin oo dalkan kenya siyaasiyiinta ugu waaweyna ayaan kaga dayan lahaa waayo ninkaas markaan dhegaysanayo wuxuu ii tilmaamaa inay soomaali wax wada leedahay isagu soomaaliya wax ku leeyahay anna kenyaan wax ku leeyahay oo dee gobolka n f d laydhaa anigu aan la leeyahay ayuu tilmaamaa haddii haddaba aynu odhan lahayn dadkii qabiilkana ha la iska daayo qabiilka ha la iska daayo qabiilku aada buu xun yahay nin siyaasiya oo shaar siyaasadeed xidhan oon cidna kabowtalayn ayay dadka kala taageerayaanoo
si aan ka dhegaystay nin la yidhaahdo agoon weersame صح ayaa wuxuu waxaan kusoo baxay subax hore nin kaaryoonlo wata صح oo kala hayo cid wax u xamaalan laha صح waa salaad hore waan gartay arsaaq buu doonayaa صح arsaaqdiisii yaa arsaaq yaa fataax ma odhan oo arsaaqdii dee wuu kicin صح wuxuu leeyahay keligii baa isla hadlayo اه siyaasiga yaga اه haddii jagad booskiisa kursigiisa lagu qabsado اه wallahi inaan reer hebel aan waxba iska kaayo dareerin اوكي naf iyo maalba waanu hurana هور الله sidaa la iska daayo اوكي ما شاء الله qofku dantiisa ha eegto yes fiican ku garanay marka guys waxaan taaganahay barnaamijkeena guntiisii iyo gabagabadii maantana waxaan garabkeena fadhiya aqoonyahan cabdiraxmaan cabdishire cabdiraxmaan maxaad kusoo gabagabaynaysaa barnaamijkeena waxaan kusoo gabagabayn lahaa kollay qof kastaaba meel buu kasoo jeedaayo maxay ahayd ilaahay ka beeray صح dadkuse waa isku mid oo maxay ahayd dadka soomaaliyeed صح wax sii meel sii kala mudan maaha waan gartay anigu imika lahjadan aan ku hadlayo kollay dee dad badan waxay arkayaan in nin reer waqooyi ahay waa run صح taasi yacni dood kama joogto waan gartay nin reer waqooyi waan hoo intaasa kusoo leekaaday waana dalkaygii hooyo صح maadaama dalka aabaani jirin صح waa dalkaygii hooyo صح aada iyo aad baan u salaamaya soomaali meel kastay joogto inay dee wanaaga halka kalen kasoo jeedana daan ku dar raaciya ma haatan صح waxaan kasoo jeedaa hargeysa iyo gedo iyo gado dalka soomaaliya la idhaha waa inta udhexaysan malaynaya waaba inta udhexaysa baa kolka haddii aan labada gobol kasoo kala jeedo soomaalidii kale oo dhanna uurkayga ha ayay ku jirtaa midba meelaan helo kala ahayba wakaas Ya. allay leh haddii si kale aan u idhaahdo ha runtii haybta hooyo haddii xaggeeda aan u kaco ha madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ha dee waa qaraabadayda hooyo صح cidna kama xiga haddana oo dee isma xijiskiyo صح oo smixid xaggiisa smixid xaggiisa isma xigsiyo dadkana kama xigo okay maadaama aad tiri wixii uu ku saxanyana waan ku taageeraa wuxuu ku qaldan oo ku diidaa wixii aan ku qaldan yahayna dee waan isdiidaa okay cabdiraxmaan tusaale ahaan haybta aabbo oo kale si kale haddaan u dhigo kollay soomaalidu qabiil ma daayaan moogta صح madaxweynaha soomaaliya ya wan anigu rag badan oo dee magaranaysaa isaga siyaasadda kula tartamaya taageersanahay صح haybta aabbo oo kala soo jeedaa haddana isma maalinna صح dee ismaan intaas soo tafaxaytay qabiil kuna taageeri maayo weligay okay soomaalina kama xigo ما شاء الله haddaba dadku inay dadkaan sheegay dadka xiga ha inay dadka horta ay ula mid noqdaan inta kale cid taageertaana صح hadday cid taageerayaan aanay qabiilla ku taageerin dan kaloo gaarna aanay ku taageerin yacni ujeeddo kalena ku taageerin ay wixii dantooda ay u arkaan ay dadku taageeraan okay ما شاء الله cabdiraxmaan waxaan haya waqtigii wuuna sii dhamaanaya gabagabo taagan yahay إن شاء الله مر لبعض نوقسو قبض زونا إن شاء الله سنان كذا فائدة سنة حكمة هذا وحين هاينا كله يمكن أفصومالي جي وتجي أو يعني أفصومالي يمكن تكنولوجي وأفرضهم بقريبين صح أفصومالي جي إنترنت عطيه نرانو عطيه التلفون نرانو وحير دم واحد نقدين أجاني صح يمكن تلفون كلي أنتو كوبين هاي وإنترنت صح وشاتر صح ومسكول صح وحوية كول وإن خط خط ملاك جيتر واحد سوماليا halkaana xigmad fara badan baynu haynaa kala gana iyo wargana iyo maxaa ahaayey isma weyno okay intaba xigmado badan yani waxyaalo badan oo lagu bedeli karo ha kaas kulankaas insha allah kulanka dambe ayaan uga hadli doonaa insha allah xigmado ah hayso insha allah waa ka faa'iideysan doonaa insha allah intii uu professor cabdiraxmaan kulan labaad soo noqon doono oo halkan waliba aan kusoo dhaweyn doono insha allah waxaan ku kala tagi doonaa isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu